ciidamadan oo ah dhalinyaro ku soo biirtay ciidanka daraawiishta booliska Soomaaliyeed ayaa waxa tababarka u furay madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya General Mukhtar Hussein Afrax kusimaha taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya ahna taliye ku-xigeenka ciidanka booliska ayaa tilmaamay in dhalinyaradani ay soo dalbadeen inay ka mid noqdaan ciidanka booliska si ay u difaacaan dalka iyo dadka mudana madaxweyne waxa meeshan maanta gadaashada fadhiya dhalinyaro Soomaaliyeed oo ku soo biiray ciidamada qalabka sida oo ah mutadawacnimo markii hore kuwa soo xilqaamay iyaga oo ka duulaya hadalkaadii ahaa baaqayga ah in dalka la difaaco oo mutadawiciin Soomaaliyeed oo dalka u dhintay in la helo runtii waa dad da'yar oo dhalinyaro sida hadda ka muuqata annagana waxaan buuxi doonaa tababarka ay u baahnaayeen sida aan u ballan qaadnay waxaan diyaar u nahay inta ciidanka booliska Soomaaliyeed ay yaqaanaan in la baro in lagu dadaalo inay noqdaan ciidanka qalabka sida kuwa buuxi kara kaalinta looga baahnaa aqoon ahaan tababarkoodana diyaar u nahay xubna ka mid ah guddiga taakulaynta ciidamada iyo culimaa u diinka Soomaaliyeed ayaa bulshada Soomaalida ka dalbaday inay taageeraan ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliya dawladii haday jirto iyada ciidamada qorata iyada ciidamada waxa ay u baahan yihiin kafaala qaata laakiin dawladeena hadda jirta cashuur ay ku kafaala qaado baahida ciidamadeeda ma jirto kolkaad ku tushigu waxa weeye in Soomaalida ay isku tashato isku laabato isbaarto oo kafaala qaado ciidamadeeda inay ka hawlgeliso waxa ay u baahan yihiin qalab ha ahaato hub ha ahaato maxay nolol kale ha ahaato labis ha ahaato waxaas oo dhan waxa layna ka doonayaa inaku in isku tashato maanta ayaan joognaa inaan u noqono meeshan 8 iyo 7 aan joognay haddaan maanta isku duubni iyo qalbi midaysan iyo gacan midaysan aan hoggaankeena aan daba istaagno on dalkeena inaan dhisano aan go'aansanana waa hubnaa inaan 7 iyo 5 iyo 4 iyo 6 aan gaari doono insha Allah meeshan marayno nimankaas ayaga ah ee khawaarijta ah dilkooda in la dilo iyo adiga inay ku dilaan labadaba janna lagu galaa shahaadadaas nabi maxamed bixiye sallallahu alayhi wasallam maanta waa yawmun lahu ma ba'dahu arabtu hijra waa maalmaha ka dambeeya oo dhan fiirsanaysa waayo maanta aan joogno waayo waa in marxaladda kala guurka aan u dhaqaajinaa tahriir ugu dambeyntiina madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo ayaa la dardaarmay ciidamadan ku soo biiray booliska Soomaaliya in ay difaacaan dalka iyo dadka ayna garabsadaan shacabka Soomaaliyeed waxa tihiin dufcadii ugu horeysay oo ka jawaabtay oo diyaar u ah inay naftooda siiyaan dalkooda inay u dhintaan diintooda inay difaacdaan dadkooda waxa tihiin runtii mustaqbalka Soomaaliyeed ayaa tihiin wadan walba oo dib gala wadan walba oo la soo gudboonaada xaaladahan oo kale mar walba wuxuu ku noqdaa dhalinyaradiisa waxa badbaadiyay dhalinyaradiisa haddana waxaan hubaa Ilaahay inuu idin garab taagan yahay Ilaahay inuu gacan idin siinaayo Ilaahay inuu idin la jiro inaad xaq ku dagaalaysaan oo aad ka adkaanaysaan qolooyinkan khawaarijta ah oo aan Ilaahay ka baqaynin Soomaaliland aanu naxin annagu diyaar waxaan idin la nahay wax alla wixii aad u baahan tihiin wax alla wixii aan ku guulaysan karno wax alla wadankan aan nabad uga dhigi karno wax alla wadankan aan horumar ku gelin karno inaan sameeyno waa naga go'an tahay idinkana waxaan hubaa inay idinka go'an tahay inaad dalkan aad naftiina u hurtaan Abdulaziz Ibrahim Ahmed Okay TV Universal magaalada Muqdisho